wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofka marka uu suuqa galaya yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa xayu laa yamuut biyadihi alkhayru kullu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ninka intaa yidhaahda marka uu suuqa galayo ilaahay kaa wuxuu qoraa buu nabigu yidhi alfa xasana waxaana laga masaxaa alfa sayi'a gurina jannada looga dhisaa waxay culimmadu ku sababeeyaan waxay idhahdaan meeshan baa ah mawطin اlgafla waa meel uu qofku markuu soo gelayo maxaad macaashtaayo maxaad dilaashaayo maxaa uu ka fekeray inta badane aanu ka fekerin wardiga iyo aakhira iyo alla aanu ka fekerin saa daraaddeed ba waxaa la yidhaha haddaad wardiga akhrisato markaad suuqa gelayso waxaad leedahay alf waa kun luqada carabeeda hore wax milyan la yidhahda ma jiro kun baa u badnaan jiray tirada carabta marka lasoo tiriyo kun ay gaadho wixii ka dambeeya kunkan unbaa la isku celcelin jiray kun in la yidhaahdo iyo alf in la yidhaahdo saddex alif haddii la sheego waa 1 bilyan laba alif haddii la sheego waa 1 milyan waa saanaynu hadda u tirino ee tirada dambe dunida nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya waa alf waa 1 milyan oo xasanaad helaysa 1 milyan oo sayi-ana waa lagaa masaxaya gurina jannada lagaga dhisaya laakiin ma haleelnaa su-aashu waa taa ma haleelnaa markaynu suuqa galayno inaynu intaan idhaahno